soma markii halkaan imaaday iyaga macnaha rajadan isii dhaqaatiirtii halkaan joogtay magacayga waa Aamina da'deeda waa 24 jir 10 sano dhibkaan qabay marka anigoo yar oo adu 16 sano camal meelahaas jira ayaa waxa dhacday inuu aabahay uu nin igu daro oo macnaha asaga ay ku soo heshiiyeen maxaa la qaad iyo waxaas adii hoola waxaas ay ku kala qaateen hooyadii markaas ma nooleen bay ahayd way dhimatay marka hada amarka waalidkana lama diidi karo bas marka waa la igu daray markii la yaaroosi ka bacdi uura qaaday uurkii waxa dhacday xilligii foosha la gaaray marka waxa ila joogtay sodohdii ay ila joogtay todoba bari amala foolanay oo fooshi macnaha time dheer waqti dheer igu qaadatay macnaha ani markaas waa yaray in isbitaal la aado oo macnaha maxay ahaydaan ama cid garab igu siisa xaafadana heer baadiye iska ahayd macnaha baadiyada deganeen marka si ku foolanay todoba bari markii dambe halkii aan ku dhalay macnaha kaadi heesta dhaawac soo gaaray ahayd maadaama aan isbitaal ama midwife ku caabisa ama umuliso aan haysanin taas marka waxay keentay in kaadi heesta dib iga soo gaaro oo kaadaan ishan karin ilmahana markaas waa dhintay marka laba dhibaato meeshaas iga soo gaaray inuu ilmihii dhinto inay maxay ahaydaan aniga ay sharafteedii halkaas ku dhimato oo macnaha bulshadii aan ka dhex baxdid oo marka saasay tahay haddana ninkii waanu kala tagnay marka anina familkayga dib ugu soo laabtay familka hooyo iyo ma joogin dadka dhan way ka fogaanayaan cid korobta ma lahan haddaysan hooyada joogin marka waxaa dhacday siis adi iskaga joogay oo meelaheega macnaha bulsho ma dhex geli kartid aroos ma aadi kartid geeri haddii raacda ma aadi kartid sababtoo adigaaba dadka dhan iyagoon kaa shakisnayna adiga shakiiska qabta waxaa isleedahay qofkan ama ku dareemaya ama macnaha shiiriya waxaas macnaha niyadjabaa meeshaas inaa bulshadii ka dhex baxdid marka anoo meesha iska joogaa maalmaha ka mid gabar aanoo imaatay adi xaaladii looga warwaramay waxaa la dhahay waxay tiri isbitaal noocaas oo Boorama ku yaal Booramana anaga markaas ma noqonin ahayd yaa idinku xiraa bas sidii halka liigu keenay waxa lacag liiga qaadin oo diyaarada la isoo saaray waxa lacag liiga qaadin waxbana ma liiga qaadin saasay tahay inta imaaday markaas waxa shaqeynaya agaasimihii isbitaalkan isbitaalkan Dr. Ibrahim Said Qoos oo Dr. Nasra aabaheedo hadii la joogto markaas bas halkan imaaday xaaladeedii ugu waramay hawshaale ii qabtay adee dhowr maraale igu ceshay qaliinka markii dambe waa iska fiicnaaday waxa la ii bilaabay in isbitaalka dhexdeeda wax la igu baro oo macna maradaysan xagga hooyo ii joogin oo oday ii joogin bas ana waxa ku laabtay ma jirto bas adeer Qoos marka oo Dr. Qoos ayaa iqaabilay inta wax la igu baray waxba iska baran jiray ahayd markii dambana heer waxa gaaray inaa jaamacad galo oo jaamacad Amuud diploma midwifery ka soo baxay markii dambe oo ka soo qalin jabiyay intaas dhan way karab taagnaan macnaha meeliga may tagin hadii wax barashadeeda tahay hadii wax kasta u baahanayd macnaha qof oo qoys ku tirsan camal ahay qof oo isbitaal joogto ma lahayn gurina waa la kiriyo markaas inta joogo jiro markaa soo barto gurigaas ka aadi jir markii dambe wax barashada ay dhamaatay inta oo soo shaqatay isbitaalka ka shaqeeya horta isbitaalkan waa meel fiican dadka wax loogu qabanayo isbitaalada kale wuxuu kaga duwan yahay waxa jooga shaqaale oo dhibti la dareemayo qofkan doctorka qofka uu shaqeeyo way dhici kartaa doctorada inay kala raxmad badan yihiin laakiin hadana markuu meesha joogo qof oo kula dareemayo dhibti qabtid macnaha qofku intaan hawsha loo qaban moraali ahaan uu caafimaadaya marka dhibti uu sheekeeyo oo dhaho waxaan waa iska caafimaadaysa dadka way ku dhacdaa waa wax iska caadi gabar kasta way ku dhici kartaa bis markaas tahay dadka waxa u sameeya macnaha counseling inaa ku tala siiyo inaa dhibka laga bogsan karo inay wixii kale meelaha jooga isbitaalka ay ku soo xiraan oo Muqdisho kale xafiis ku leeyihiin la soo xiriiriyaan burca xafiis meel kasta dadaan oo jooga
waa maxay hadaan isbitaalkana waxaa laga imaadaa dee inta af Soomaali laga hadlo Geeska Afrika oo dhan waana looga imaada saa isbitaalkaanu ku qaabila waanu ku soo dhaweynaa si fiican waa ugu shaqeynaa dadka iyagoo faraxsan ay naga tagaan macnaa qofkii wuxuu ku imaanay isigoo xanuunkiisa waxa u dheer moral ahaan u dhinsan yahay oo qofkii bulshadii uu ka dhex baxaya wuxuu isleeyahay adi maahan cid kale oo dhibkaan qabto ma lahan marka anagana saasa ما يوجد هذا ما بقوليني هرت قفكو مر همي وليه سوما أنا هميجي أنا لها مركايرة لحظة كوكو أيبا سبوتو أرجدي دنوا كذا أي مركدي بكاني ودعدي أنا قف دينتي أو لدوجين عملا إسكاهاي معنا بنانك وهسكي شوقي أو نفوي يوجد لكن يدهانا ودينتي سوما مركي هالكاني ماذا إيجا معناها رجدان إسيدا خطيرتي هالكان شوكتي وكمد أها دكتور قوس يو دكتور سعيد أحمد والهد iyaga igu dhiirigeliyay markaas inaan noolaan karo nolosheedii macnaha dib ula soo qabsan karo markii aan dhakhtar ahaan idaabeeyeen haddana waxay isiyeen talo oo ah inaan wax baran karo inaan bulshada macnaha dib ula jaan qaadi karo macnaha horta hadda ani inkastoo in badan ka soo maqanahay oo hadda 10 sano inta joogay oo hadda laakiin way jirtaa dad badan oo nooga imaaday meelihii kuwa caroornimadii iska siinay iyo kuwa kale oo aqoon laakiin goboladaas nooga imaaday way jiraan inta ku qaabilo lagu daaweeyo أنا قف دينتي أو لدوجين عملا إسكاهاي معنا بنانك وهسكي شوقي أو نفوي وجرت لكن يدهانا أو دينتي صوما مركي هالكاني ماذا إيجا معناها رجدان إسيدا خطيرتي هالكان شوكتي مقعيقا وآمنة دأذي ذوا فرلاتين شير 10 سنة ديبكان قبي مركا أني غوير أو أدو 16 سنة عمل ميلاها ستيرة أيا واحد عادين وعبهي ونين يقدروا ومعناها أساقا أي كسوهي بس مركا وادو على يقدره مركي لي عروسك بعد أورا قاده أوركيها واحد عادي حلقي فوشها لقاري مركا waxaa ila joogtay sodohdii ila joogtay toddoba bari amal foolanay oo fooshi macnaha time dheer waqti dheer ay u qaadatay macnaha ani markaas waa yaray in isbitaal la aado oo macnaha maxay ahaydaan ama cid garab igu siisa xaafadana heer baadiye iska ahayd macnaha baadiyada deganeen marka si ku foolanay toddoba bari markii dambe halkii aan ku dhalay macnaha kaadi heesta dhaawac soo gaaray hay maadaama aan isbitaal ama midwife ku caabisa ama umuliso aan haysanin taas marka waxay keentay in kaadi heesta dib iga soo gaaro oo kaadaan ishan karin ilmahana markaas waa dhintay marka laba dhibaato meeshis iga soo gaaray inuu ilmihii dhinto inay maxay ahaydaan aniga ay sharafteedii halkaas ku dhimato oo macnaha bulshadii aa ka dhex baxdid oo marka saasay tahay haddana ninkii waanu kala tagnay marka anina familkayga dib ugu soo laabtay familka hooyo iyo ma joogin dadka dhan way ka fogaanayaan cid korobta ma lahan haddaysan hooyada joogin marka waxaa dhacdaysaan siis adi iskaga joogay oo meelaheega macnaha bulsho ma dhex geli kartid aroos ma aadi kartid geeri xataa raacda ma aadi kartid sababtoo adigaaba dadka dhan iyagoon kaa shakisnayna adiga shakiiska qabta waxaa isleedahay qofkan ama ku dareemaya ama macnaha shiiriya waxaas macnaha niyadjabaa meeshaas inaa bulshadii ka dhex baxdid marka anoo meesha iska joogaa maalmaha ka mid gabar aanoo imaatay adi xaaladii looga warwaramay waxaa la dhahay waxay tiri isbitaal noocaas oo boorama ku yaala booramana anaga markaas maan aqoonin ahayd yaa idinku xiraa bas sidii halkale igu keenay waxa lacag liiga qaadin oo diyaarada la isoo saaray waxa lacag liiga qaadin waxbana ma liiga qaadin saasay tahay inta imaaday markaas waxa shaqeynaya agaasimihiisa isbitaalkan isbitaalkan Dr. Ibrahim Said Qoos oo Dr. Nasra aabaheedo hadda la joogto markaas bas halkana imaaday xaaladayda ugu waramay hawshaale ii qabtay adee dhowr maraale igu ceshay qaliinka markii dambe aad iska fiicnaaday waxa la ii bilaabay inay isbitaalka dhexdeeda wax la igu baro oo macnaha maradaysan xagga hooyo ii joogin oo na oday ii joogin bas ana waxa ku laabtay ma jirto bas adeer qoosa marka oo Dr. Qoos ayaa i qaabilay inta wax la igu baray
waxbaa iska baran jiray ahayd. markii dambena heer waxaa gaaray inaa jaamacad galo oo jaamacad Camuud dibloma midwifery kasoo baxay. markii dambe oo kasoo qalin jabiyay intaas dhan way karab taagnaan macnaha meeliga may tagin hadday waxbarashadeeda tahay haddii wax kastoo u baahanayd macnaha qof oo qoys ku tiirsan camal ahay qof oo isbitaal joogto maan ahayn. gurina waa lii kiriyo markaas intaan joogi jiro markaa soo barto gurigaas ka aadi jir. markii dambe waxbarashada ay dhamaatay inta oo soo shaqatay isbitaalka ka shaqeeya. horta isbitaalkan waa meel fiican dadka wax loogu qabanayo. isbitaalada kale wuxuu kaga duwan yahay waxaa jooga shaqaale oo dhibtii la dareemayo qofkan. digtoorka qofka hadduu u shaqeeyo way dhici kartaa digtoorada inay kala raxmad badan yihiin laakiin haddana markuu meesha joogo qof oo kula dareemayo dhibtii aa qabtid macnaha qofku intaan hawsha loo qaban moraali ahaan u caafimaadaya. marka dhibtii ugu sheekeeyo oo dhaho waxaan waa iska caafimaadaysaa dadka way ku dhacdaa waa wax iska caadi gabar kasta way ku dhici kartaa. bis markaa saas tahay dadka waxaa u sameeya macnaha counseling inaa ku tala siiyo inaa dhibkaa laga bogsan karo inay wixii kaloo meelaha jooga isbitaalka ay kusoo xiraan oo muqdisho kale xafiisi ku leeyihiin lasoo xiriiriyaan burca xafiis meel kasta dadaan ugu jooga oo maxay hadaan isbitaalkana waxaa laga imaadaa dee inta af Soomaali laga hadlo Geeska Afrika oo dhan waana looga imaada. saa isbitaalkaanu ku qaabila waanu ku soo dhaweynaa si fiicanna waa ugu shaqeynaa dadka iyagoo faraxsanay naga tagaan. macnaha qofkii wuxuu ku imaanaya isigoo xanuunkiisa waxaa u dheer moral ahaan u dhinsan yahay oo qofkii bulshadii uu ka dhex baxaya wuxuu isleeyahay adi maahan cid kaloo dhibkaan qabto ma lahan. marka anagana saasa ma igu jiro hadda maba aqoonin. horta qofku mar hami uu leeyahay sooma ani hamigii aan lahaa markaa yaraa dhexda ku go'ayba sababtoo ah rajadii dhan waa ka dhacay markay dhibkaan igu dhacday. ani qof dhintay oo la duugin camala iska hay macnaha banaanka waa iska joogi oo naf way igu jirtay laakiin niyad ahaana u dhintay sooma. markii halkaan imaday iyaga macnaha rajadan isii dhaqaatiirtii halkaan joogtay uu ka mid ahaa Dr. Qows iyo Dr. Saciid Axmed Walhad. iyaga igu dhiirigeliyay markaas inaan noolaan karo nolosheedii macnaha dib ula soo qabsan karo. markii ani dhakhtaraan idaaweeyeen haddana waxay isiin talo oo ah inaan wax baran kari inaan bulshada macnaha dib ula jaan qaadi karo.